marka alxamdulillah waa ilaahay kasay marka dhibkaana dhacay habeenka soo laabtay sidoo dhibku u dhacay marka yaa sidoo u dhacay ka aniga habeenka waa iska jiiftay nabadan ku jiifanay adiga 9 saac 7 saac intaan soo kacay anoo kala taagan lii xirxiroy arsay waxa jiraan warada iska dhaafayso waxa jiraan ada arki doonti ninkan baagadiid la soo qabsaday waa la tafaaragay waxa iska cali waay waxa soo baxay ma arkin marka dhibkaana la igu dhigay anigu waa daanay ilaahay ka samaa gacantu faaska la dhacay ha ilaahay ka goodo gacan kasta macnaheedu arintan marka Soomaali wax kala gaaro waa laga xaltamaa waa laga geed fariistaa ama diyaal qaataa ama sidee noqotaa lagu xaliyaa wax soo noqosho ah iyo qoyskiisa ka socday oo ku yimid ma jira oo cidiin u yimid maya ma laga geed fariisan lagama geed fariisan kulanti waxaan saaxiibayaal soo dhawaada halkani waa bogeyga Facebook ee Aweys Maxamuud Jilco waxa ku soo dhawaataan program gaar ah oo ay maanta marti noogu tahay hooyo Canab Cali Maxamed hooyo Canab waxay kamid tahay hooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho laakiin in badan oo kamid ah sheekadeeda waa qaracan waxaana ayna la wadaagi doontaa wax badan oo ku saabsan sheekadeeda oo ah wax ay in badan la noolayd ee taacadi ay kala kulantay nin ay u dhaxday oo ay caruur u dhashay hooyo Canab ku soo dhaweynaya waqtiga qiimaha badan kaaga madcelinina soo dhawaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta waa ku salaama walaalkay waa mahadsan tahay marka koobaad umada Soomaaliyeed salaama meel walba ay joogan anawi waxaan daawanayaa dad badan barnaamijkeena inta badan waxaan kaga hadalnaa dhibaatooyinka ay hadda la nool yihiin qaar dumarka qaar ee Soomaalida iyo dhibaatooyin ay muddo ka hor ku dhacay waxyaabaha ay go'aanayaan inta badan barnaamijkeena arrimahaas aan diiradda ku saarnaa waxaan gudagaleynaa barnaamijkeena ninka kugu horeeyay ee aad guursatay miya dhibaatadan kala kulantay mase ninkii labaad oo aad guursatay maya kan labaad meeqsana jira guursatay adoo meeqsana jira 13 sano ku guursaday aniga guurkay koowaad markaas magaaladee joogtay waxaan joogay magaalada Warshiq aad joogtay way marka adaa keensaday ninka mise waxa kugu daray kana mise markii kan labaad kan koowaad ana keensaday hooyo ii joogtay aabba ii joogay markaas alxamdulillah waa kala tagnay wax caruur hal cunuga ilaahay iga siiyay kadib aan kan isguursanay canuga kugu kan aabba siiyay oo saan inaafiyay marka meeqsana jira ku dhashay canuga koowaad gabadha ahaa 20 sano tacadigan kugu dhacay saa ii sheegtay waxa ku geystay nin markaas isqabteen oo ilmaha aabahoodna ah si isku guursateen ninkaas aabba siiyay wax caruur uma dhalin waqtigii ahayd markaas guursanayseen wallahi waqtigaas waqti badan laga joogaa waqti badan laga joogaa 16 sano laga joogaa waay yaa ku siiyay marka aabba igu daray wiilkana ku siiyay u dhahay marka anigana waa dhihi waayay maya oo inta badan Soomaalida waalidka in laga duceysto ay hortay ay ku nool yihiin ana waa dhihi waayay maya marka usna ma taxgelinin wartaan waa lagu siiyay waa gabar abta isma dhihin baagadiisu bila dhacay way baagad inta la gaarin marka dibka markuu kugu dhacay iyo marka uu ku guursanay meeqa u dhaxaysay 2 sano markaas wax ma u dhashay maya way hooyanawi waxa jiro waxay dad badan ku daawanayo waxaana jecel yihiin in sheekada si fiican ula socdaan marka maxaa keenay in dhibaatadan uu ku geysto oo qof bilaadan adigoo ah waliba xilihiisa ah uu baangad kula dhaco ilaa gacmaha ka go'an maxaa sababay maya dhibaatadan waxaan keenan ku sheego inta badan horta hooyada markay caruur meel ku soo dhasho caruurtada inay soo fiirsato ma jeclo wuxuu dhahay waa caruur soo cunug soo fiiriyeys malahan ninkaas shala kala tagteen min ay aadaysid nin waxaan dhahay cunuga soo fiirsaa waan soo laabaa aniga runay ka taamay isdhiin haddii runay ka taaganta umleeyahay ma soo laaba lahaynba waa tagay cunugan soo fiirsaday waa soo laab marka intaadan bixin ka hor ku hanjowmaa muxuu ku dhahay markaas ma aadi kartid haddii aadidna anima waxaad sameeyay ma aadan hay iyo ragdata aadi waay waay waa tagay marka hay cunugan u tagay waa soo fiirsaday waa soo laabtay
marka adi intay degan tahay oo lagu qabo markaas canugaagis intuu joogaa ma dheerayna cunuga meel dheer ma jirin warshiiqaas la joogta haa waay soo hayaan baxay habeenkii waa soo waday marka canugaasna waxaa haysto aabihii dhalay haa aabihii dhalay haysta aabihii markaas aabaheeda noolay hadda waa dhimay Allah u naxariisto aboota haysta jirtay awlin hayso gacanta ku hayso marka qeyr Allah siiyadana waay sheekada noo socotay canuga marka waxa ku soo booqanaysa gurigiina miya oo ayay maya guriga ayada waxaan ku soo booqanayay wiilka ku qabay hooyadiis maxaa dhacay marka dhibkaan dhacay habeenka taas oo laab sidoo dhibku u dhacay marka yaa sidoo u dhacay ka aniga habeenka waa iska jiiftay nabadan ku jiifanay adiga 9 saac 7 saac min intaan soo kacay aniga kala taagan lii xirxirow rsay waxa jiraan warada iska dhaafayso waxa jiraan ada arki doontii aduu gacmaha ka xirxiray aduu ku xirxiray aduu muddo ku soo kacday soo ku soo kacnay waxa ka qaldan war iska dhaafay ada arki doontii waxa qaldan aye waaya ninkan baagadiid la soo qabsaday wala tafaaragay waxa iska cali waay waxa soo baxay ma arkin marka dhibkaana la igu dhigay anigu hadaan ilaahay ka samaa gacantu faaska la dhacay ha ilaahay ka goodo gacan kasta waay markaas maxaa dareemaysay dareenkaaga siduu ahaa ma qaylisay dad ma u yeeratay gurmad ma heshay see xaalka ahaa waxaan gurmad u yeerdha aniga haddii gacmaha laga goy waaba sirara meeshaan ku siraray inta haddaan oo dhawaaqayn waxay soo gurmado ma arkin aniga haddaa oo soo naaxaya isbitaalka oo kaysanayaan joogo marka dada waxay ugu dhaheen inaan cararay oo tegay oo halka u tegay oo waxaa yiri waa soo dilay waana dhimatay haladu kabacdi waxaa la adaa dishay ma qodka duugtid soo laabo qodka duugay ii ka duugi maayo aniga waana baxay waana idin sheegay waana dhimatay waa soo dilay waana dhimatay markaas waxa arintaas u sheegaa cidii u tagay u sheegay u siirigi waa soo dilay islaantii waana dhimatay haladu bari qodka duugay hal yiraahdo baxeen waa baxaa aniga in la dilo maro nafteeda la carara ay kana ma dheena soo ma qaban waxay yireen waa deystin hore u baxay markii la hadda waa ilaaliyay waa meermeeriyaan iska sheegayaan oo meel oo jani cilib dhigay ma la arkin way waa qariyaan dharka dumarka oo gashto si la qariyay way laakiin adduunyo way biri ahaan ala sark doona insha Allah macnaheedu arintan marka Soomaali wax kala gaaro waa laga xaltamaa waa laga geed fariistaa ama diyaal qaataa ama sidee noqotaa lagu xaliyaa wax soo noqosho ah iyo qoyskiisa ka socday oo ku yimid ma jira oo cidiin u yimid maya ma laga geed fariisan lagama geed fariisan maxaa dhacay marka ma soo dhibaatada in asaga ku geystay macdeen waa cadeed laakiin hadii ay ka garawayeen hal sameeyay way markaas wuu ku qabay dhibaatada ku geysay ma kala tagteen marka culimada dhaheen ma jiro nikaax diyadeedu galay iska baxsho qofta lama hayo diyadeedu galay dhaheenay diyadeeda laga qaaday gabartaan nikaax waay hadii kale hadda la soo qabto waxa dilay waa xirinaay cidiisa Allah keena meel ku baayay dhaheen arkana meen marka saas buu kuuma xirnaba marba haduu dhibkan diideeda u galay saas uu kala furantiin culimada ku dhaheen marka dib dambe isaguma laaban adna iska guursatay waa iska guursaday anna waxa la igu dhahay iska sabar dhibkan waa la ku qor waa kugu dhacay an kuntan kaaga maari karno ma hayno waxa la dhahaa liibaani waa qayr iska sabar faataanaga qaado